بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkan oo hoyga magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweyne Axmed Qoorqoor waxa ku soo dhamaaday kulan uu dalbaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kulanka waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Galmudug iyo midowga musharaxiinta ujeedada kulanku waxay ahayd sidii looga wada shaqeyn lahaa in magaalada Muqdisho jawigeeda nabadgelyada la xoojiyo laga wada shaqeeyo sidii amniga iyo deganaanshaha magaalada gacan looga geysan lahaa isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah ama dhibaato u keeni kara xasiloonida caasimadda Muqdisho oo aad ogeydeen maalmihii la soo dhaafay inay rabshado ka dhaceen iyo sidii dadka ka barakacay guryahooda ay magaalada ugu soo noqon lahaayeen fariinta nabadana loo gaarsiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed waxa kale oo laga wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa in dalka ay si degdeg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyay 17 September isla markaana dhinacyada oo dhan ay xoogooda u midayn lahaayeen in la ilaaliyo nabadgelyada dalkana ay ka dhacdo doorashadii lagu heshiiyay dadka Soomaaliyeedna dhamaantood ay u midoobi lahaayeen gacmahana ay isku qabsan lahaayeen loogana fogaan lahaa wax kasta oo dib u dhac ku ah amniga iyo xasiloonida dalka marka shirkaasi si guul iyo safgarad ayuu ku dhamaaday insha Allah taala wuxuuna hordhac u yahay kulamo ra'iisul wasaaruhu doonayo in qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada iyo mas'uuliyiinta uu la yeesho taasoo dhammaanteed ujeedadu ay tahay in laga shaqeeyo laba shay oo ah in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waddanka iyo in laga wada shaqeeyo sida dalka ay uga dhici lahayd doorashadii lagu heshiiyay